marka hore waxaan si guud u salaamayaa shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo wada dhan madaxweynaha jamhuuriyadda Muuse Biixi iyo guud ahaanba intiina maanta igu maamustay inay igu soo dhaweystaan magaalada Hargeysa waa garan kartaano anigu muddadii yaraydan maqnaa waxbarashaan u maqnaa laakiin intii aan halkaa joogay waxaan ku dadaalay inaan ka mid noqdo dad fara badan oo ka shaqaynayay in dadka jaaliyadda dalka Ingiriiska jooga ay midoobaan intii doorashooyinka ka dambeysay wax badanina way suurto gashay had iyo jeerna khilaafyada iyo waxa la sheego waxa laga yaabaa inta badan inay buunbuunin tahay laakiin dadku wax ay iska afgaran waay karaan oo buurani ma yaalo waxyaabaha asaasiga ah oo dhan dawlad iyo mucaarad iyo shacab iyo ummaddu way isla wada ogashahay nolosha caadiga ah baanay ka mid tahay in ra'yi markuu jiro ra'yi kalena jiro wax la dhibsan karo oo la bixidsan kara maaha waxay inagu dhan uga soo wada jeedaynaa midnimada ummadeenna taageerada qarannimadeenna dawladeenna hirgelinta nidaamkeena dimuqraadiyadda iyo tartanka axsaabta badan iyo ta ugu qaalisan oo ah nabadgelyada nabadgelyadana waynu ku soo shaqaynaynay 28 sannadoodba dadaal dheer maynan ku hungoobin ama khasaare kama joogne nabadgelyada waxaynu ku dhidibnay dawladdaasi aynu arkaysaan quruxdeeda qofkuna markuu gudaha joogo had iyo jeer inuu naaxay iyo inuu dhuuftay isma gartee qofka dibadda ka jooga arka Soomaaliland marka dibadda u wada baxdo ayaad midabkeeda quruxda badan arkaysaa ka gudaha jooga laakiin siiga iyo waxba ka qarinaysa waad sameeysaa farmaro tashuush kalun baaba iskaga furmaya oo dhawo hadduu doono badrigaas aaba iska horkeenaya casarka marka oo laba su'aalood intuu weydiiyay doodeetana labaduba isla qarxayaan dadkuna waxay moodayaan inay meeshii burburtay badri waa la kaftamaya ilimka waan uga suxufiyiintii kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay odayaasha waana suxufi weyn oo soo baxay waa iga kaftan waxaan anigu doonayaa oo kaliya inaan idinku dhiirigeliyo saxaafadda hadaatiin inaynu door ka qaadanno adkeynta nabadgelyada wixii dambana waynu iswaraysan doonaa mid iyo laba wixii ay weydiinaysaanna diyaar baan wax cabdilaahi maxamed daahir cukuse horta marka hore waan kaaga mahadnaqaynaa waad mahadsan tahay maalimihii intaad hadda maqnayd warar baa soo baxayay sheegaya in afhayeen lagaaga dhigayo xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye oo arrintaad hadda waxbarashadaadii uga timid baa taa tahay warkaa maxaad ka leedahay su'aasha kale ku weydiinayna waxa weeye hadda waad ogtay madaxweynuhu in kastoo labadiina dee arrimo badan waa hore ay dhex mareen haddana sanad iyo barkii uu hayay sidaad u aragtaa xukuumaddiisa horta su'aasha hore xil baa lagu magacaabaya college-kii aan dhiganayay laguma haynin warkaasi halkaa ma ooli waa waxaad adigu imika igu kordhinayso talabaadna waxa weeye anigii madaxweynaha u malayn maayo laba qof oo naga saaxiibsanay inay jiraan waxaanu nahay dad saaxiiba dad jabhad soo wada ahaan jiray dad dawladda soo wada ahaan jiray dad xisbiga soo wada dhistay oo kulmiye wada ahaan jiray saacadihii u dambeeyayna aanoo dhisayaaban dhoofay badriyo sidaasay la tahay wasiir haddii marka saaxiibkaaga Muuse Biixi ee soo wada jabhadan ka soo tirsaneen si fiican aqoon waa suulan wuxuu wasiirnimo ku magacaabo ma qaadanaysaa war xilka waxaan kugu yiri xilka horta qaranka anigu ilaa maalintii Soomaaliland ay bilaamatay ilaa maanta xil hoose iyo xil saraba waan ka soo qabanayay xigmadda ugu weyn xilka ugu weyn imika caawa idinka bahaya waana kaan hayn jiray waa ka saxaafadda waa kala doonayo ummadda inuu isku hayo marka xilku ma aha marka hore kaad istirtaa ugu qaalisan ka kalena waddankeennii baynu joognaa dalkeennii baynu joognaa xuquuqda muwaadinka kale leeyahay ayuun baan leeyahay